casharkan waxaan ku baran doonaa wax loo yaqaano HTML attributes ayaa loo yaqaanaa. Dhammaan elementska HTML waxay yeelan karaan wax loo yaqaano attributes. Attribute-ka muxuu u taagan yahay marka sifa ahaan, muxuuna noo qabanaa marka aan isticmaalno attribute. Attribute-ka wuxuu elementiga sii doonaa additional information oo elementigaaga ayuu sii doonaa. Additional information-ka marka waa awood ka baxsan elementigaaga marka hore awoodihii uu haystay. Tusaale, haddii aa haysto elementi iisoo bandhigayo qoraal, elementigaas marka aan rabo qoraalkiisa muuska markii sidaan loo dulgeeyo in uu iisoo bandhigo qoraal yar oo title ah oo aan kusoo bandhigayo sharaxaad, waxaan isticmaali doonaa attribute. Okay, attribute-ka mar walba waxaa lagu qeexi doonaa start tag-ga. Annaga markaan soo baranaynay basic-ga sidaan waxaa loo yaqaanaa start tag, halkaanna waxaa loo yaqaanaa end tag. Attribute-ka waxaa lagu qeexi doonaa halkaas ayaa lagu qeexi doonaa, waana arki doonaa practice-ka. Attribute-ka mar walba wuxuu ku imaan doonaa, wuxuu leeyahay wax loo yaqaano magac iyo value. Tusaale sidaan oo kale waxaa jirto boqolaal elements aad gudahooda ku arki doonto sidaan oo kale. Default wax walba oo sidaan ah, magac leh, equal, double quotation na wato ama single, default waxaa loo yaqaanaa waxaas attribute ayaa loo yaqaanaa. Okay, tagga tusaale ahaan aan haysto kasoo qaad h1, intana waxaa iga soo xirmay h1, halkan waxaa isaga qornaa qoraal ah welcome. Haddii aan rabo elementigan inaan ku daro attribute, waxaa imaanaa halkan oo ah start tag-ga, space ayaa dhihi doonaa. waxaa sheegi doonaa attribute name-ka, kadibna equal, double quotation. Attribute name-kan waa arki doonaa way badan yihiin, magacyo ayay leeyihiin. Example, midka ugu horeeya aan isticmaalayna waxaa loo yaqaanaa title. Halkan waxaa loo yaqaanaa attribute value ama hadalkii ama qiimihii attribute-kan uu qaadan lahaa ayaa lagu qori doonaa. Okay, attribute-ka marka waxaa loo kala qaybinaa wax loo yaqaano two types ayaa loo kala qaybinaa attribute-ka. Typeska loo kala qaybinayo maxaa waaye? Kuwa waa built in oo HTML waa attribute HTML ay leedahay, sidoo kalena loo xil saaray shaqo HTML ayada ay ogtahay. Kuwana waxaa loo yaqaanaa user defined ayaa loo yaqaanaa. Adiga oo developer-ka ah ayaa abuuranayo element, adiga ayaa abuuranayo. Tusaale, attribute cafwan, attribute-kan magaciisa waxaa u bixinaa nagee. Marka aad adiga attribute abuurato, attribute-kaaga ma qaban karo shaqooyinka attribute-yada kale ee HTML leedahay ay qaban karaan, balse attribute-kaaga adiga waxaa uga faa'iideysan kartaa JavaScript iyo jQuery ayaad uga faa'iideysan doontaa. waa arki doonaa koorsooyinkaas marka aan gaarna ayagana hadduu ilaahay ogolaado. Okay, waxaa rabnaa marka attribute iyo macnihiisa iyo awoodda uu leeyahay inaan aragno. Really, HTML waxyaabaha ugu badan ee awoodda siinaayo waxaa ka mid ah attribute. Okay, casharkan marka intaan ku jirno waxaa laga yaabaa waxyaabo aynan qaadan inaan isticmaalno, balse waan sharxi doonaa. waxyaabahaas dib ayay naga jiraan, waa baran doonaa, laakiin ujeedada aan u soconna ayaa ah attribute inaan fahanno. waxaa save garaynaynaa, waxaan furaynaa new page, kadibna control s, waxaa u bixinaynaa casharkan wax loo yaqaano documentiga magaciisa ayaa u bixin doonaa. Tusaale, waxaa dhahaynaa attribute ayaa u bixinaynaa .html ayaan leenahay, kadibna save ayaan leenahay. waxaa u baahannahay keliya title, asigana waa iska dhaafi karnaa haddii aan rabno. waxaa dhahaynaa attribute. Okay, marka attribute si aa u isticmaasho waxaa u baahan tahay inaa marka hore soo bandhigto ama aa isticmaasho some elementska ka mid ah ee HTML. Tusaale, waxaa ku hormaraynaa anaga elementigan ah h1 oo kale, waxaa aragtida qoraal kusoo bandhigi kartaa. Okay, inta waxaa ku qoray keliya h1, save, kadibna right click, open in browser ayaan leenahay.
hadda elementiga laysoo daabacay magaciisa waxaa ku qoran h1 waxaa u baahanahay marka aan muuska dulgeeyo in uu iisoo baxo qoraal yar waxaa doona aniga kusoo qoranayo tusaale waxaa kusoo qoraa hidden 1 oo kale okay ila socon sharciga attribute-ka waa inaa ilaalisaa waajib waxaa ku qoraynaa start tagga halkaan attribute looguma talagelin imaw halkaas waxaa dhahaynaa attribute name-ka aan isticmaalayno title ayaa loo yaqaanaa equal double quotation waxaan ku qorayaa halkaas hidden 1 control s browserka ayaan tagayaa refresh muuska ayaan dulgeynayaa waxaa ujeedaa inay noo soo baxday hidden 1 mar kale aan ku celiyo waxaa noo soo baxay hidden 1 elementigeena awooddan mausan lahayn marka hore in marka muuska la dulgeeyo uu soo bandhigo title information inuu soo bandhigo okay waxaa aragnaa marka attribute-kan magaciisa waxaa loo yaqaanaa title gudaha waxa ku qoranna waxaa loo yaqaanaa value oo warka arta ku qoran kartaa dhammaan elementska html-na waa u isticmaali kartaa okay every element walba waxaa dhahnay wuxuu qaadan karaa attribute haddana waxaa baranaynaa meeshaan inuu element walba qaadan kara dhowr attribute maxaa samayn doontaa space ayaa dhahaysaa waxaa sheegaysaa another attribute-ka kale ee aa u baahan tahay laakiin waxaa qalad ah inaa hal elementi u isticmaasho same attribute hal mar wax ka badan tusaale mar kale haddii inta aa ku qortid title equal double quotation ee aa ku qortid welcome html kan ayay kuusoo bandhigaysaa midkan kale waa la ignore garay doonaa save aad try garayno muuska ayaan dulgeynaynaa hidden 1 ayaana loo soo bandhigay laakiin waxaa kuu furan another attribute kale inaa isticmaasho okay halkaas waxaa ku baranay attribute magaciisa loo yaqaano title oo loogu talagalay qoraal ama sawir ama video marka muus la dulgeeyo in uu kuusoo baxo title okay attribute-yada aan baranayno dhan halkan ayaan ku qoraynaa hal mar title waxaa u naqaanaa get title ayuu noo sameynaa attribute-ka kale ee aan baranayno waxaa loo yaqaanaa src waxaa loo soo gaabiyaa source src-gan waxaa loo isticmaalaa imageska marka aad rabto inaad sawir soo bandhigto src-gan waxaa lagu sheegi doonaa gudihiisa src waa attribute name value-gan waxaa ku sheegi doonaa attribute-ka value aan dhahno sawirka magaciisa iyo extensionkiisa okay waxaa baranaynaa another attribute kale ee loo yaqaano href href waxaa loo isticmaalaa linkska links maxaa ula jeedaa marka aad tagno tusaale website un aad tagno tusaale ahaan sublimeka haddaa aan raadino qoraalka noocan oo kale ah oo markii muuska la dulgeeyay sidaan farta isku bedelayso ayaa loo yaqaanaa linki sidoo kale marka aad riixdana ku gey doono another position kale ku gey doono linki marka la abuurayo marka waxaa qasab ah hrefkan waxaa lagu sheegi doonaa linkiga markii click la siiyo positionka la aadi lahaa waxaa kaloo halkan ku baranaynaa target wax loo yaqaano target waxaa loo isticmaalaa asigana linkska ayuu la shaqeeyaa oo ah marka aad rabto linkigan back aan dhaho marka aad rabto linkigan in sidaan oo kale lagu sameeyo new page lagugu furo meeshii horena aan lagaa cancelin ayaa waxaa la isticmaalaa attribute loo yaqaano target value-giisa wax ku qoranna waa ku tegi doonaa okay waxaa kaloo baranaynaa attribute loo yaqaano style oo loogu talagalay in lagu qoro wax walba oo css gudihiisa in lagu qoro waxaa kaloo baranaynaa attribute kale ee lagu magacaabo width waxaa loogu talagalay qoraalada ama sawirada ama muuqaalada in balacooda lagu weyneeyo waa arki doonaa waxaa kaloo baranaynaa attribute lagu magacaabo height oo asigana loogu talagalay qoraalada iyo sawirada waa widthka cagsigiisa joogooda in lagu dheereeyo width waa balacan heightna waa joogaan okay bal aan practice garayna attributes marka intaan way ka badan yihiin mid walba waa ku tegi doonaa okay kuwan maxaa sameynaa inaa comment saaraa rabaa taagaasaa furaynaa shift number 1 kadibna waxaan dhihi doonaa
minus taaga naga xir. sidoo kale maxaa samayn kartaa, waa soo koobiyeyna halkan ayaan dhigaa. haddii aad isticmaalaysa sublime inaa highlight garayso kadibna control aa qabato slashna aad taabato, intii aa qornay asigaa kuu qoraayo. highlight kadibna control slash. okay, waxaa isla aragnay attribute-ka loo yaqaano title. waxaa isla arkaynaa attribute-ka loo isticmaalayo sawirada. bismillah, waxaa dhahaynaa sawir markaa soo bandhigayno horta waxaa isticmaali doonaa elementi loo magacaabo img. sawirada waynoo dhiman yihiin, dib ayaan ka baran doonaa. okay, gudihiisa ayaan geli doonaa. waxaa ku daraynaa attribute loo yaqaano src oo loo soo gaabiyaa dhahne source. gudahan waxaa ku sheegi doonaa sawirka aan soo bandhigi doono magaciisa iyo extensionkiisa. okay, waxaa tegaynaa google-ka, waxaan raadinaynaa tusaale sawir ayaan raadin doonaa, ama waxaan sameynayaa computerkeyga inaan ka dhex raadsado sawir. downloadka ayaan tegaynaa, waxaan leeyahay tusaale ahaan sawirka aan u baahanahay inaa helo ayaan waxaan ka raadsanayaa halkan. kan ayaan soo koobiyeynaa, waxaan leeyahay copy, folderkeyga ayaan imaan doonaa, kadibna html halkan ayaan basti ku dhaxanaa. marka mar walba ee aad sawir soo bandhigayso waxaa lagama maarmaan ah sawirkaaga iyo fileka aad rangaraynaysa inay isku meel ku jiraan. magacan aad ayuu u dheeryahay, waxaan dhahaynaa right click rename. tusaale waxaa isaga bixinaynaa logo. aniga hadda waxaa ii muuqdo fileka magaciisa iyo dot extensionkiisa. adiga waxaa laga yaabaa inuusan kuu muuqan. si aad usoo furato waxaase tegi doontaa meesha ay ku qoran tahay view, kadibna waxaa imaataa meel ay ku qoran tahay file name extension, tig saaro. aniga hadda haddii aan tigta ka qaado waxaa iisoo baxaya magacyada keliya. waa masti mar walba inaad sas ka hubiso, tigaa saaranaynaa. waxaa koobiyeysan doonaa sawirkan magaciisa, control c, kadibna halkan oo waxaa tegi doonaa sublime-ka, basti ayaan ku leeyahay. src-ga maxaa ku sheegaynaa sawirka magaciisa iyo extensionkiisa. waa goormee? waa marka fileka aad rangaraynaysid iyo sawirkaaga ay isu muuqdaan. ay isu muuqdaan waxaa ula jeedaa haddii sawirka folder uu ku jiro another face kale ayay yeelan doontaa. waxaa dhahaynaa halkaan na keen, taababkan naga xir, waxbaa ku practice garaynaynay, refresh ayaan leenahay. waxaa ujeednaa waxaa noo soo baxay sawir Dunbar Academy ah, loogadoodii kambaniga loogadiisa ayaa noo soo baxay. okay, sawirkan hadda aad u weyn yahay inaan yarayno iyo shaqo kale ayaa isticmaali karnaa. okay, noodka aa haysanay waxaan ku daraynaa another attribute kale ee aan isticmaalayna ee loo yaqaano alt. alt waxaa loo isticmaalaa keliya only imageska ayaa loo isticmaalaa. okay, waa arki doonaa qaabka u shaqeynaysa. sawirkii waa soo bandhignay, laakiin haddii aa qalado sawirkan magaciisa maxaa kugu dhici doona? fiiri, waa lasoo wey doonaa. mar walba ee calaamadaas aa aragto laba midood waaye, sawirkaaga magaciisa ayaa qaldan ama extensionka ama qodobka saddexaad meesha uu ku jiro ayaan la aqoonin. waa saxaynaa. okay, waxaa isla aragnay sawir iyo shuruucdiisa gooniya u baran doonaa. src la-aantiisa in aynan soo bandhigi karin sawirka magaciisa extensionkiisa ayaan dhigaynaa. alt attribute maxay qabane? alt attribute waxay la shaqeysaa ayaan nahnay sawirada. tusaale space ayaan dhahaynaa, mar kale ayaan isticmaalay soo maha, laba attribute a isticmaalaa. inta waxaa ku qori doonaa Dunbar Academy oo kale ku qori doonaa. safe. alta marka haddii aa isticmaasho, mar haddii sawirka uu soo muuqdo altada qoraalka ku qoran lama soo muuji karo. laakiin haddii sawirka cilad ku dhacdo, magaciisa ama extensionkiisa la waayo, waxaa soo muuqan doono altada qoraalka ku qoran. kow, waxaa dhahnay alta waxay la shaqeysaa sawirada. waxay sidoo kale shaqeyn doontaa marka sawirka aad soo bandhigayso lasoo waayo ama magaciisa aa qalado ama ani problem kale uu dhaco. marka maxay faa'iidey doontaa? waxay faa'iidey doontaa tusaalahan sawirkan waa la waayey, aniga looga ahaana u isticmaalaya kasoo qaad, halkaas waxaa isaga soo daabacday magaca kambaniga ayaa isaga soo daabacday. xasuusnow alta waxay la shaqeynaysaa sawirada,
waxayna shaqeyn kartaa mar walba ee sawirka la soo waayo. haddii sawirka aan soo helno alta meesheeda ayay ku laaban doontaa, ma soo muuqanayso. okay, hrefkan waa ka boodaynaa, usoo laabanaynaa, waxaa tegaynaa width aan tegaynaa oo ah sawirkan inaan iska yarayno. another attribute kala isticmaali rabaa space ayaan leeyahay width equal double quotation. ballaca ayaan rabaa inaan iska yareeyo, waxaa leeyahay 100 pixel. kuwan css ayaan ku baran doonaa pixel iyo percentage iyo waxyaabo ayaa jiro, waa halbeegyo cabirada lagu sheego. waxaa dhahaynaa refresh, waxaa aragnaa sawirkeeni inuu aada u yaraaday. marka haddii aan rabo inaan dhaho sawirkeyga ballaciisa ha layga dhigo 300, laakiin aan rabo joogan ballaca oo widthka waa intaas, sidaan horizontalkan waa, heightkana waa dhirirkan. haddana dhirirka inaan yareeyo haddii aan rabo, halkan waxaa ku qoranaa space, waxaan leeyahay height tusaale ahaan 100 pixel, inuu ka yaraado ayaan rabaa. okay, waa ujeedna soo ma? height markaa isticmaasho waxaa la yareyn doonaa dhirirka, width markaa isticmaashana waxaa la badin doonaa ama la yareyn doonaa ballaca qoraalkaas ama sawirkaas, wax walba ee aa isticmaashay. okay, waxaa u tegaynaa wax loo yaqaano href ee aan u isticmaalayno linkiska aan u isticmaalayno. okay, link inaan soo bandhigaa rabaa, waxaa imaanaynaa halkan, markaan linki soo bandhigayno ayaan isticmaalaynaa oo loo soo gaabiyo anchor tag. halkaas ayaan kasoo xiraynaa eeda. tusaale ahaan hadda haddii aa inta ku qoro click, waxaa arkaysaa qoraalkan qoraal click la sii kara maha. sidoo kale waxay ka tirsan yihiin ayagana inline blog way isdaba socdaan. in new line oo ii tagaa rabaa, waxaa dhahaynaa pr ama line break, kadibna waxaan leeyahnaa refresh. qoraalkan in click la siiyo haddii la rabo, waxaa suuro geli karo attribute ah halkan ku darayna ee loo yaqaano href double quotation. halkan waxaa lagu sheegi doonaa marka linkigan ama qoraalkan click lasoo siiyo meeshii la aadi lahaa. annaga haddii aanan hadda meelba u diraynin, waxaan dhahaynaa refresh. waxaa aragnaa in uu isu diyaariyay in click la siiyo. mar walba ee href isticmaasho laba arinaa kugu soo kordhayso. midabka waxaa laga dhigi doonaa buluug, waa midabka linkiyada lagu aqoonsado, iyo underline oo xariiqana lagugu soo aadin doonaa. hadhow marka css markaa tagno waxaan waa iska qaadi karnaa. okay, hadda haddii aan rabo inaan meel u diro, tusaale ahaan waxaa imaanaa new tab, halkaasa waxaa ku qoraa google.com, waa soo koobiyeysanaa. meeshaas waxaa loo yaqaanaa url, informationka linki in la booqdo aa loo isticmaalaa. halkan ayaan basti ku dhahaynaa. aniga hadda waxaa qoray google.com, laakiin intaan waxaa isoo raaciyey url-ka uniform resource locate ayaa loo yaqaanaa, aa loo soo gaabiyaa. waa protocol ama shuruuc browser walba uu fahmi kara. wa tusaale haddii intaan keliya ah inta ku qoro, mar walba ee aan linkigan click siiyo, waxaa lay fahmi doonaa qof sharci darro ku socda inaa ahay. tusaalaan keligaa siinaa, maxaa lay dhahay filekan ma shaqeynayo. sababtana maxaa waaye inta fiiri html/google.com, laakiin haddii intii aa ku daro http gan oo ah uniformka ama url-ka informationkiisa haddii aa raaciyo, waxaa loo fahmi doonaa linkiga aa booqanayo linki sharci ah eena loo booqan karo si qaas ah. waxaa dhahaynaa hadda back refresh, click ayaan siinaa, waxaa leegayay google.com, waa laabanaynaa. haddii aan rabo marka linkigan marka click la siiyo inuusan meel aadinna, waxaa samayn kartaa inaad ku qorto 4 gees ama hash wax loo yaqaano, waa meelna ha aadin. mar allaala markii click lagu siiyo meeshaad iska joog aa loo yaqaanaa. okay, annaga aa u daysano google, waxaa baranaynaa mar kale attribute-ka loo yaqaano target. sababtaa u baranaynana maxaa waaye, annaga waxaa rabnaa kuwaan iga xir. waxaa rabaa mar walba ee linkigan click la siiyo in uu ii furnaado pagekan, aanan laga tegin sidaan oo kale inay dhacdaa rabaa. okay,
hadda haddii aan click siiyo pagekayga hore waa layga wade laakiin target wuxuu ii suuro gelinaa inaan sheego qaabka pagekan loo furaayo space ayaan dhihi doonaa attribute-ka hore waxaan leeyahay target equal double quotation underscore blank ayaan ku qoraa oo micnaheedu tahay page cidla ah in lagu furo refresh hadda haddii aan click la siiyo anigoonan isticmaalin right click waxaa ujeedaa in pagekayga lagu furay new page in lagu furay okay waxaa noo dhiman attribute-ka kale ee loo yaqaano style ee aan u isticmaalayno in css aan isticmaalno annagu css maanan gaarin laakiin style siduu u shaqeynaya inaan baranaa rabnaa tusaale waxaa rabaa kan inaan midabkaas ka bedelaa rabaa tusaale ahaan blue waaye inaan ka dhigo guduud iyo wax lamid ah halkan ayaa imaanaa waxaa ku dari doonaa attribute-ka loo yaqaano style equal double quotation marka qoraal colorka laga bedelayo css waxay adeegsanaya property loo yaqaano color laba dhibcood waxaa sheegi doontaa midabka aa u baahan tahay red oo kala dhexeena hadda haddii aa imaano halkan refresh aa dhahna waxaa ujeednaa midabkii inuu isbedelay sidoo kale waxaa ka qaadi karnaa xariiqanta hoos taalo css xariiqantaas markii la qaadayo intaan waxaa loo yaqaanaa property intaanna waxaa loo yaqaanaa value mid kale haddii aa qoraysid waxaa dhahaysaa semicolon okay waxaan rabnaa marka in aan tusaale ahaan ka bedelno underline-ka ayaan dhahnay waxaa dhahaynaa text minus decoration laba dhibcood kadibna waxaan leenahay nan ma u baahnin decoration kadibna refresh waxaa aragnaa in nagala joojiyey halkaas ayaan kusoo koobeynaa muuqaalkeena assalaamu calaykum